إن شاء الله إيريدان أنت بدن بيهود وبيه معان هدوال لي رادو marka ilaaha waxaan ka rajaynaynaa insha Allah inuu biyaha inoo maceeyo ayaan ka rajaynaynaa haddii alla yiraahdo cilmigu haddii uusan lahayn baraatiko waa qabyo weliba kuma sii jirto marka la diyaarinayo injineero baranayo cilmigii lagu soo saari lahaa kheyraadka dabiiciga ah ee dalkeenna ku jira kuwaani waa injineerada mustaqbalka dhow ee cilmiga geology ama barashada dhulka ka qaadanaya jaamacadda Hormuud weli waa sanadkii saddexaad ee jaamacadda tii oo ay tahay maanta waxay qayb ka yihiin qodista ceelbiyood deegaankan muhiim u ah qaabka loo kormeero ceelasha warbixinta dhulka iyo cashiro kale ayaa ah waxa halkan ka soconaya ceelka markii qoditaanka la bilaabo waa idin sheeg waxa la isticmaalayaa bentonite-kaas la isticmaalayaa iyo laba godoo qodan oo ayagana mataqaana biyaha bentonite lagu qasaayo jaamacadda Hormuud oo kaashanaysa shirkadda dhismaha Buruj injineer ka tirsan ayaa ardayda si toos u siinaya bilow ilaa dhammaad shaqada halkan ka socota deegaanka ceelka lagu qodayo oo ah duleedka caasimadda ayaa cashar kala siinaya ardayda kaas oo ah in cilmiga ay baranayaan baahi weyn loo qabo dalka oo dhan dad iyo duunyana ay u baahan yihiin injineero wadani ah oo kheyraadka dalkeena si cilmi ah u soo saaro biyaha ugu horeeyaane marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in aqoontooda aan helno waxa weeye waa biyaha iyo shidaalka shidaalku wax oo mustaqbalka noo soo socda oo horumarkeena qayb ka ah haddana waxa loo waa injineer Cabdalla Jaamac Maxamed oo ka mid ah ardayda jaamacadda Hormuud ka dhigata cilmiga barashada dhulka waxa uu 5TV u sheegay wixii ay barteen intii ay xiisada baraatikada ah ka qaadanayeen injineerada shirkadda dhismaha Buruj qaybteeda ceelasha biyaha halkan waxaan ku sugnay muddadii oo projectku socday oo dhan si aan mataqaana aan ugu aqoontii oo theory-ga ahayd aan u aragnay iyadoo practical oo socota marka waxyaabaha mataqaana buugta lagu qaata ama daraasada fasalka taala waxay u baahan yihiin mataqaana in si loo fahmo oo cilmiga uu kaaga dhaadhaco inaad aragtid wixii lagu sheegay buugga theory-ga si aad noqoto qof wax soo saari kara moogtahay oo aqoontii aad baratay wax ugu bedeli kartid moogtahay practical marka inagu taa ka duulana filliga halkan aan u nimi muddadii uu socdayna mataqaana inta badan waan joognay marka qaarkood waxa laga yaabaa inay qaybtay oo ay magaalada soo seexato laakiin maadaama magaalada aad nooga fogtay oo naga durugsan tahay halkan mataqaana waa aragtaa anagu go'aygi baan sitaa teendhadii halka wata ka dhisan cuntadii halkan inoo tahay moogtahay marka waxaan ahay dad oo duur suucan reer guuraa caadi aan noqonay moogtahay laakiin waxaan ku faraxsanahay inaan wax badan aan fahnay wax badan aan baranay wax badan mataqaana aan ka fahnay regional geology-ga oo Muqdisho ama Banaadir iyo mataqaana water level-ka inta joogo iyo ceelkan oo project-ka hadda socda moogtahay taqaana waxyaabaha oo aan ku qaadanay internship-ka waxa kamid ah drilling intuu socdo sida loo akhriyo mataqaana sambaliska sambaladan oo ku sheegaya mataqaana in ay jiraan biyo formation-kii dhulka log stratigraphy-gii waxyaabahaas oo dhan mataqaana oo ku siinaya mataqaana aqoon ku saabsan biyihii iyo intii ku jiraan iyo tayadooda iyo quality-gooda marka waxa u baahan tahay sambalka inaad qaadid sambalkaas waxa weeye waa muunad ku sheegaysa moogtay hadba leeyarka aad joogtid ma aquiferkii baad gaadhay biyo maleeyihiin biyo intee leeg jira marka waxyaabahaas aan ku barnay moogtay waxaan ku barnay equipment-iga loo baahan yahay mataqaana marka la ceelka la dhameeyo oo drilling-ku u dhamaado oo casing-kii ah noocyada mataqaana material-ka saa ku xulinaysid waxaan kaloo ku barnay mataqaana marka aad tahay supervisor inaad mas'uuliyadaha iyo roleska aad qaadanaysid moogtay inaa mataqaana aad taqaanid marka dhammaan waxyaabaha kala duwan baan ku barnay waxaana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shirkadda Buruj iyo jaamacadda Hormuud oo mar walba iskaashi u ka dhaxeeyo ardaydana si fiican u taageera marka ay joogto internship-ka jaamacadda Hormuud oo bixisa kulliyado kala duwan haba ugu horeeyaan cilmiga tiknoolajiyadda iyo injineernimada ayaa sanad walba sii tayeynaysa waxbarashada sare kulliyad walba oo jaamacadda lagu dhigtana waxaa la socda baraatiko taasi oo ah mid soo jiidanaysa ardayda Soomaaliyeed jaamacadduna ay ugu duwan tahay jaamacadaha kale